Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dharka haraaga ah ee dawaarlaha waa dharka uu jarjaray harqaanlaha gobollada ka soo haray ee aan ku wanaagsanayn in laga talo sarwaal ama wax kale oo qofka ku labisan karo. Hadda warshadaha dharka sameeya isla markaana tala waxaa ka soo hara dhar badan oo jarjar ah. Gobolladaas dharka ah ee soo haray inta badan way gubaan ama waxay ka iibiyaan shakhsiyaad iska leh dukaanada yaryar ee wax lagu harqaamo ama waxaa ka iibsada qoysaska dhaxanka cararka ah oo xilliga uu jiro qabowga inta ay shidaan ay isku diirayaan. Marmarka qaarna waxaa gata shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha soo saara saliidda iyo guud ahaan waxyaabaha leh dufinka. Waxayna gobolladii dharka ahaa ee ay soo iibsadeen isaga tirtiraan gacmihii ay saliidda ka soo gaartay. Haddaba waxaa jira nin Turki ah oo lagu magacaabo Khalid oo ka tagay miyiga dhulweynaha Anadol wuxuuna galay magaalada ugu weyn dalka ee Istanbul si uu u helo shaqo uu naftiisa ku maareeyo. Laakiin dhanka kale waa nin ribaadiye ah oo wax aqoon iyo xirfad midna aan lahayn. Wuxuu garan waayay wax uu qabto iyo meel uu shaqo tago. Waa miskiin aan haysanin wax uu cuno, dhanka kale aan lahayn xirfad lagu doorto. Laakiin waa qof nool oo lixdiisa lixaad qaba oo xoog leh. Wuxuu iska dhex lugaynayaa wadooyinka waaweyn ee ay buux dhaafiyeen gaadiidka. Qof kasta subaxii meel ayuu u shaqo tagaa, laakiin Khalid ma garanayo wax uu qabto. Wuxuu ku wareeray joogitaankiisa magaaladani weyn ee Istanbul. Wuxuuna ku dhawaaday inuu dib ugu laabto miyigii oo kolkii horeba ka yimid. Asigoo Khalid xaaladani ku jira ayay isbarteen qof ka shaqeeya warshad samaysa dharka. Ruuxii ayaa Khalid xaaladda uu ku jiro ku eegan waayay, wuxuuna u raadiyay shaqo. Markii dambena wuxuu shaqo ugu soo helay warshadii oo asiga naftiisaba ka shaqaynayay. Wuxuuna Khalid ka mid noqday shaqaalaha hoose ee warshadda. Muddo kadib wuxuu bartay sida loo wado gaadiidka. Xirfaddan oo kolkii dambe Khalid u suuragelisay inuu ka mid noqdo darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka ah ee lagu daabulo wax soo saarka warshadda, isla markaana isaga kala goosha gobollada dalka. Khalid ay indhihiisu qabanayeen dharka ka soo haray warshadda ee jarjarka ah ee meel kasta daadsan. Dhanka kalena ay marmar qaar aruursanayeen qaar ka mid ah shaqaalaha warshadda ayagoona ka sii iibinayay dadka daneeya dharka haraaga ah ee ka soo haray dharkii badnaa ee la talay. Asigoo Khalid xaaladani ku jira ayaa sanadkii 1994 dalkiisa Turkiga waxaa ku habsatay musiibo dhaqaale oo aad u xun, taa oo sababtay inay hoos u dhacaan wax soo saarka warshadaha dalka, qaar kalena ay kacaan ama shiidaan. Dhibaatadan dhaqaale xumo waxay keentay in warshado badan xirmaan. Haddaba warshadii dharka uu Khalid shaqaalaha ka ahaa waxay ciirisay tiro badan oo shaqaalaheeda ah, waxaana ka mid ah shakhsiyaadkii musiibadani shaqadooda ku waayay ninkani aan ka sheekaynayno ee Khalid oo aan ogsoonnahay kolkii horeba sida uu shaqada ku helay. Khalid meel ma fariisan ee wuxuu isla markiiba baadigoob u galay sidii uu ku heli lahaa shaqo kale, laakiin waa waayay wax shaqo ah. Waayo waddanka dhan waxaa ka jira baagamuuddo ballaaran oo maalin kasta waxaa shaqo waayaya kumanaan ruux. Khalid ayaa xasuustiisa dib ugu laabtay, waxaana u soo baxay in ay jirto fursad shaqo oo dahabi ah. Dhankan aysan jirin qof ka warhaya oo kula tartamaya, taa oo ah ka faa'iidaysiga dharka haraaga ah ee ay iska soo tuureen warshadaha dharka ee dalka. Mar uu Khalid wareysi siiyey mid ka mid ah wargeysyada dalkiisa Turkiga ayuu sheegay inuu go'aansaday markii shaqada laga soo ceeriyay inuu iibsado gaari xamuul ah oo uu ku daabulo dharka haraaga ah ee ay iska tuureen warshadaha. Laakiin Khalid waxaa ku adkaatay inuu gato baabuur u sahlaya shaqadiisa. Kolkii dambena wuxuu iibsaday baabuur, wuxuuna iska bixiyay iibka haafkiisa oo uu kari waayay inuu lacagta dhammaanteed bixiyo. Khalid ayaa markii uu gacanta ku dhigay gaadiidkii uu ku shaqayn lahaa bilaabay shaqadiisa cusub. Wuxuuna ku wareegi jiray warshadaha dharka soo saara si uu ugu soo aruursado dharka haraaga ah ee ay iska tuurayeen warshadaha. Markii uu Khalid soo aruursado dhar badan oo hara ah, wuxuu dib ugu iibin jiray dad badan oo u baahan dharkaasi jarjarka ah ee ay iska soo tuureen warshadaha dharka. Khalid ayaa sii waday shaqadiisa, wuxuuna isku ballaariyay dhammaan warshadihii dharka ee dalkiisa Turkiga. Dhanka kale wuxuu helay suuq ballaaran oo ka iibsada dharkani haraaga ah. Ma jirin shakhsi kale oo Khalid kula tartamaya ganacsigani. Sidaas daraaddeed Khalid wuxuu ka dhex xamaalanayay suuq cidlo ah oo aysan jirin qof kula tartamaya. Khalid ayaa kolkii dambe ganacsiga sii ballaariyay oo galay aag kale oo macaash leh, laakiin weli wuxuu hormuud u yahay ganacsada ka macaashta dharka haraaga ah ee ka soo haray warshadaha dharka ee dalkiisa Turkiga.